انتو هذا عبد الرحمن دير وقف فنان وفنانين انت بدن horta waa la durduraa oo waa dad waxa la yiraahdaa Soomaaliga waxa lagu dhahaa qof durmaa ilaa bal la qof haduu soo farnaan noqdo durmaa qaato isaga dad ma taqaana kaftan dalbaday fanaaniin laakiin sheekadiiniyo waxay isku bedeshay in gabadhii sharafteedii iyo kafadeedii iyo gabadhnimadeedii meel laga gar taas waa kow waxaa meesha timiday in hooyadeed oo maamo qaran ahayd oo mataqaanaa fanaaniintii waa beri ku jirtay Aamina Cabdillaahi oo mataqaanaa qof leejan ahayd oo 7 fadhiisatay in mataqaanaa leeydi sharmuutay ahayd iyadana sharafteedii iyo maamadaas la caayay marka arrintaas وقلي إيش كذا كذا بي إن أدتك شعب كسب فاصل وش رحضه كسر. أنت ولا أركي جهرت برنامج كمرك حرة دانيرا أنا هاي أو جيسيكس ليرادو أو بدن أو أي قبيلة كشري إن واحد جرتي برنامج والبول ده هنا ووضع فلاقي جرنا وسوى قبل جرنا وأنا وضع شركة ريجر. ما مغلسها واحد عليه برنامج قادر عبد الرحمن إن جروب كلا كنا أو ده برنامج قادر عبد الرحمن الله جهالته dhalinyaro ee soo gashay markaa ka hadalnay oo aan macnaha barnaamijka aan ka kaftan in sheeko noocaas camal aan gelin arinku inay u bedelaan dadka qaar ee u adeegsadaan inay in arinku qabiil laga dhigo oo qabiil lagu aflagaadeeyo oo sumcadiisa iyo sharaftiisa iyo hooyo iyo dhammaanba la keeno oo la keeno in xataa la dhaho maamada asalkeeda ee Khadar Cabdiraxmaan hooyadeed waxay ahayd nin hebel ah haysan jiray iyo sheeko noocaas camal oo tira badan oo anak in nolol soo dhiibon la wallahi igu billahi igu talaha aniga waa diiday shakhsi ahaanteeda walaalkayga teelana waxa la rabay in uu arinka uu soo galo arinku wuxuu socotaa arin siyaasadeedsan ay u socotaa because waxa dadka ay doonayaan waxay tahay horta sabaroon dhalinyaro badan oo sabaroona jirto oo arinka ka dabaaqay oo ka soo hadlay oo macnaha social media qaab ما قرنا يعني إني ما مسوا أفلقادين إني قفص أفلقادين ما قرنا لكن أرينك وحي كدجن إن أرينك دنيرة سمرون باش أو كحد يسوي سوشيال ميديا كجرته إني هاي سامري إذن أو هرس مالنا أو إني تاي أملنا حجز تاي أملنا أيو إني تاي أو سو أفلقادين أيا واحد ربي هذا إن إن هويدا معمدا هويدا اللي يرادو هذا عبد الرحمن هويدا ماشي لسوق اليوم لا أفلقاديو ولا قشة لا بين أبوه لدونا يه قبيلكو يدل عين نسم نمدوده أو وح لا قشة إيه فاهم إذا صح مركب واحد عادي أنا جو واحد شخصي هانتي ثالي كمي سلحبينك على سوق علي والله هو رالي جري واحد أنا كان أنا كم مجرم هذا عبد الرحمن وجبر سوماليات وحوا كشيء كرا بقولنا وح كشيء جاي قبل بدنا وح كشيء جاي وحاكدرت إن أديرتي كمية حسكا وح كشيء جاي أو هرجيس معناه أساس أنا هاي وحاجر على يرب بدن أو برامج أنا كابتن إباشار بيجي هاد قبيل معاي قبيلنا ما أفلق هذه قبيل أنا كشيء أنا صح كعبو عنيك ما خدها خدك كعرس ما مرينيا ما كوسو علي كعبو خدك كعرس الناس واقف صد برنامج شرقرية برنامجكم متقنا حساس ويان أرنتي هذا عبد الرحمن قرتي دي بالجود شراء يهودي من عبد الله ما من عبد الله والعاي لأن يردي متقنا أركاس كشرتي أو متقنا لأن يرد قارك لو سري أو قاب كله لو سوق جديد لكن أرك وجدوين بدأ كدبين لأن يردي بأرك يعرف فشل ربطة أركي توس بالله فشل ربا دمانتين إن البرنامج كان نشر كريسان أي رجال ناس دتك أوجها قبتر أوجار أنا نسوق قبنا دمانتين أنا نسوق قبنا برنامج كشركرية ميل كاستيدو جارسيا شركرية كعبوا سواق بس برنامج أما تيلا اللي بدنا ميت أسواق بس ده نميو وقت يقول أنا نسقب حراء سواق بس برنامج سواق بني ولا وين سواق بني برنامج سواق بس كعبية تيلان اللي بدنا ميت كذي ناس سواق بستان أيام رجال لها برنامج كا وصعدا برنامج كا
arrintu marka meel xasaasiya maraysaa arrintu meel adag bay maraysaa gariyo gar bay taagan tahay in maamooyin la caayo waxaan maqlay xataa in khadra daahir la caayay oo qaar ay caayeen ma arkin laakiin hadday jirto arrinkaas khadra daahir baa la caayay kuwa caayay iyo kuwa amine cabdilaahi caayay labadu waa laba khasunaas oon isdhaamin laakiin arrinku halku ka bilaabmay inaan gunteeda ini soo ursiiyo saan inii wado arrinku halku ka bilaabmay iyo ujeedada laga lahaa iyo filinkaas wuxuu ahaa ayaan mataqaanaa inaan nii soo bandhigaan rabaa marka dhammaantiin waxaan rajayn lahaa inaad mataqaanaa barnaamij waa nimayow soo qabsada nimankii halkay ka baxeen Thailand baa soo qabanaya ninkaas ninkii ka cabaha ma aqaan ma telefoonkaa ka damay ma meel ka baxo wallahi ma aqaan asaga barnaamijka laftiisa Thailand صاحب سودو أروح مقلة يا صاحب خد كم حاجة خد لكن خد كمان هو جوجاي ما قانيه وتاني خد كسي في عمو نيكل الله عطيه عيد بقول يا أوكي هذا مقلة واكم على سبع واكم قلاني أوكي باك سلام يا أديك شعب كضاونا يا بدن هذا بنسلا يا دوّاي صح صاحب barnaamijkan ku jirnay waa kii markii dhaweed waxay naga istaagay khadkii waxbay naga istaagay niyahow arrinka saan kuu sheegay way Thailand dadka ma taqaan horta dhamaantii sheergaray dadka 500 ma taqaana ku daawanaya waxaad ka haqabtirtaa ood u sheegtaa ood ka jaahil tirtaa barnaamijka ujeedada laga lahaa iyo qaabka idinka barnaamijkaas filkaas la idigu soo geliyay dadka u sheegnaa نيو دوّاي وأنا كمان استقبلت سوق تبشر مع السنتي برنامج كان نيو ضد أنا وكنت شري ليفان سوق لي ودتنا كوش هذا كوش شوية وحن في الأخير صور كعبد صور كيكون شيء نقل مرسل الماهر كا بواحد نري كفت واحد سكوت رسالة سمران يوحى وين ما كان المهات ما كنا نكان تو حناقة ندله أنا أذكر كفت معنا نكان نبي دول دونا مع أنتو حناقة نكى صلاي مرسل ولا دول دونا مع إيرو نكان دول آخر كم معناها واحد أصدقاء دونا إير مرسل نكان المهات يو سمران أوكي نبى أجلس دبقاتي صح نبى أجلس دبقاتي نريد الله ما يكعب أجلس دبقاتي يجري تسون سواها الله يجري سيده الله الله يجري ولا كلا بحياة قبل الله كلا بحياة ولا دخل سكدريا وإحنا على سوق لا أوكي نكاس وكب حي مولد والجيران سماسون سوق لي برنامج وحي بدل برنامج سياسات بكرة وحي كان معناها قبل هوية ما بدنا نفوش كذا أنا لف كوتشرة هذا عبد الرحمن هذا ليه بوحي يسوق قري نكا هذا عبد الرحمن بينما ما عاد بدوني هذا عبد الرحمن واحد هذا صح ما قرأت صح كعب نكال لا يبغى بس بدل دولي كعب نكال يصوب صوب يروني وضدها عايب بيروني هو نكال قصري وعرتها عندنا عايب بيري إسكاب حليفة معناها مركز شن بقول وقف داون في ولا بقول وقف كم ده إنيميشن داون ما قرأت صح ما قرأت معناها شكل السياسة ولا قاعد السياسة وح سياسة ولا قاعد ومعناها هذا عايد وقف تكتشفوا آمنة إيوه odayaal inta iyo waxyaalo kale iyo xabaal qof iyo balaayo deedto hadda waxa la dhigi karaa wixii siyaasadda laga dhigo oo waa ma aan kaftan waa dhaafto sheekadu waxa weey macnaha waa toos macnaha waa foolxumo qaawan weey war ma garan صح anaguna khaadka aan leenahay waxa weeye in waxa weeye aan soo hadal qaadnaba hodan iyo waxa weeye caruurteeda iyo ninkeega waa ku khaldannahay waliba life aan soo galay anigu waxaan waa khaldamay نوين بقى وحوي إن نماذج وحكوا تان سقان إن عن قبل سوماليات أنا سوق تان ليف سوق قطو قلت أنا يلا بحمي يلا نيجا يلا سيدي وي كوب مية لأن أنا هذا حكم مسوين أنا بحسوس مية نوين بقى ميديا ليه أنا يو إن أنت سوق تان قبل سوماليات كو سوق قطو وحوي بالك كفت أنا أقول أما ننحاس كيس بنقول كذا أما نولا شيز أما نبى دراي إن أنا كود ديارت وحوي وأبسولت وحنو أقولي دان شروس وحسكول وحنو أدفع الحموي معنا taasuna anay waxay tahay nin maxay tahay ani laftiga sharafta wax dhaawacsa anu un baa xisay ayada koob ma yeelan horto mid goobaad ma garan mid baa jirta ma qalsan muridu
كارح كلا هي كارح كلا تيلان waxaa jirta arrin uu kacab ka dhawaajinayay oo ahayd in mataqaanaa dad fanaaniin iyo wariyaal ay mataqaanaa arrinkii nugula jireen oo mataqaanaa in la qaba qaabinayeen ma jirtaa dad adig kula soo xidhiidhay oo barnaamijka saas u gal ama qaabkaas waxaas dhaha ama saas wax u weerarayn dhahay ma jiraan niyo horta qofka laga soo xiriiraya mawlid weeye macnaha hadaan ku sheegay waxay la soo xiriirto ma jiraan mawlid ba u gartay horta inuu shabaqa u isdaadiyay because inuu hooyada meesha keeno maba ahayn because danu kama hadlin laakiin ka hadal buu lahaa hooyada saas weeye hooyada waxa lagu sameyn jiray asiga taas asaga keenay macnaha asaga iyo qoftan kartuuna arkay macnaha waxa soo qabanaysay macnaha kartuun iyo asaga iyo wixii la socdo u gartay macnaha meesha ku jiraan macnaha markuu runta ka leeyahay xoolo qarnay macnaha waa waxa sheekadan anoo dhalinyarada iska ahayn marka gabadha waana ka gurtay laakiin sheekadii gabadha waxa keenay in habro iyo lagu soo bilaay wax kale iyo macnaha lagu weynayo ma gabadha wariyaha oo live ka soo galgasho haysto ingiriiska joogta miyaa kaltuun marka kaltuuntu waa taamiya kartuun iyo mid wariyaha joogta xalay waxa arkay ayadoo inta ninka soo qabatay oo uu leeyahay waxa soo qodhay samaroon iyo sinay mawlid betri macnaha waa mid laga qurux badan runta koobaad taas waa khalad bal dhigi karaa because ayadoo horta waa qof dumara ma mateli ka dhorto mid koobaad beel ma mateli ka dhor waxay tiraa aan la yaabay maxaa weeye ha ninkan betri waxaan waa la geliyey dadkaas isku diraya asagu waxa weeye waxaa la marinaya samaroon betri laakiin dadka isku diray samaroon iyo saaqan oo walaalay tiri macnaha si fiican marka koowaad anaga waxaan nagu tiri waan soo qabanaya qoftaas qofkiisa ugu doonaysa ahayd GCS waxa weeye groupkan waan soo qabanaya hadhow waana dhahdaan reerka waxaa la marinayna gabadhaas walaashan reer gelinayna اوكي برامج كانوا بحث waxay ku soo qortay mawlid ku soo qortay mawlid oo samaroon raal gelinaya way ku soo qortay meeshii macnaha awl anaga dhamaan la soo haasho guriga ku jirnay ku soo diray ay soo fuushay barnaamijka marka hore waxay idin tiri niyo waan soo qabanaya groupkiina waxa tiraadaan gabadhaas ma raal gelini markii dambana intay soo qabatay waxay tiri mawlid samaroon bay ku soo qortay miya aha marka hore group aan ku jirna oo Jesus loo maxal dad badan ku jiraan duqbul waa ku jira ma sha Allah laakiin duqbul ulaha soo ma gelin laakiin adigu group ku jira oo shir gareena macnaha meherdiis waxa weey waa dawana nin asoo nin oday weey nin afaraha galay waxa ku jira ma ahan laakiin waa nin asoo macnaha iskaga jiro lama shaqo soo laakiin waa iskaga shir gareenayo oo nin media ku jiro weey ma garan qoftaas wuxuu yiri mawlid wuxuu yiri qoftaas waxay tribi yiri caawa waan soo qabanayaa adiga iyo saaxiibada waa inaad gabadha raali gelisaan arrinkan dhamaynaya groupka anoo saaran bay live soo gashay markaan share gareynay ma fiirin ba horta markaan share ku bilaabay baan saa u fiiriyay waxa ku qoran mawlid waan caaw aan la heshiisiinayo beesha samaroon horta macal qoraalku waa khaldanaaday mawlid iyo waxa soo qaaday beesha samaroon mawlid bay sintay waxa laba nin qof heshiisiinaysa macnaha soo geliyo halka qoraalkaas waa qalad soo geliyo sheekada inta bax caadi leeyni affooli soo dhex geliyay sheekadu way iska cadeed mawlid iyo sheekadaas waa la group ah horta ninkan dhoo Cabdirasaaq naska oo baanhoofka live ka soo geliyo suma ee farsiga joogo suma mawlidka ay leeshiisa beeshiisa kaaway mawlid waa kaaway mawlid iyo samaroon beeshiisiinaya wax aqliga galamaya sheekada iyaga ka dambeeyay sheekada la soo horta mar koowaad qoraalkaas waa qoraal isku diray weey macnaha isku dir baa la dhigi karaa lama dhigi karo macnaha heshiisiin macnaha qoraalka dadka isku diraya waa mid laad waxa la dhahdo ninkii beesh u gafay معاو ورسنا إنك سوق رتل ورستو بيش محبوب في واحد نوع عاصم يسكر رستل لكن قرط أيضا جبره قرب مجوك كده برضه كو أنا مركز أنا ربنا أنا وحال مرد تلف سوق عنده جبر جريه واحد جبر جريه أنا جر سوق واحد هذا تيلان أو سمرون نجسينيو تتواصل على بس أبو رصد بس صدق معنا وعيبها وعاد عيب ويمد كمان أيضا ضمر برضه شكان درج ضيار إنه سوق له نرجع وسوق له وواحد وكهلوي إنه قف ضمره مع حسب ما حسب كان معناها wax aqal gal kala rabaa moogto kow halkaas anaga ina gelisay ayadu waxay tiri ninkan iyo samaroon iyo labada nin samaroon bay tiri iyo isaaq waa dad walaalaha bay tiri waa isguursanaa isdalnay laakiin ninkan anaga ila bay tiri dabka meel kale laga horinaya calaashan Thailand iyo xaga ka horinaya Thailand iyo kacba dadkooda oo isku diray samaroon iyo wax weyn oo kala dhoo isaaq anigu niyahow mawlid oo iska kafta badnaa horta waxyaalaha had igu kalifay oo wax weeye igeliye macnaha waxyaalaha foosho xun waxa kamid ah iska fudud baa iska qalb furan macnaha kaftankii baa la hoos geliyay macnaha waliba aniga wala gelinaa horta ilaahay iga qabtay
ودا هويدو بربان أفتك فلان أنا حنا فهم هبين عايز سمرون هي سمرون إيه شوي سمرون يرجع على لانجابتي وهوس يقول صقري معنا حد هذا أمانة وحق بيجي هبل أنا ما أركي معنا كنت قولك مرة ما أركي waxa soo qabsaday kacab wuxuu yiri uriyow wallahi wax kama dadan dawni ruuxii niyow kor waa bax hawshan kaftan waa dhaafsa shakadan buu yiri iskaga baxbi macna inta live-kina oo ka baxay oo shakaran galay oo taga ka soo qabtay marka waxaan shabaq weyn loo daadiyay anaga roon ku dhigo anigu samroon ma istaaqna ma ihi anigu khadro qofta la dhaho khadra saliima iyo hoodan cabdiraxmaan waa loo qof ay ismana dil loo qabiil la dil dhaho macnaha anigu ma ihi midna macnaha lama safan karo ma garatay صح وإيه تبين ومن ما دكات معناه ما قبل شكل معناه خضر بلص aniga lafteeda habeen dhaweyd live waan soo galay oo ma taqaanaa wixii la soo dirayay horta anu markaas caadi dhima kala gargaranayna wixii la soo diray oo dhan horta waano xanaaqsan baan live soo galay oo wixii baa isku de walaal gabadh hadii maanta gabadh walaasha hadii la caayo maanta gabadh walaasha hadii la caayo de bari xaaskaaga ku xigta moogtahay adigana ninka ragga ah xiniyaha meel ka hooseeyo meel ka khatarsan la taabtaa ma jirto qofku de qof maanta walaasha ugu garaayo qof xiniyaha ku taabtay moogtahay qofka si kale wada fuudeyn kartaa moogtahay hebel cod male iyo hebel showyadeed waa hebel waxaas oo kale waa ku fuudeyn jirnay gabdhaha oo fanaaniinta waan ma taqaanaa waa ku fuudeyn jirnay waan dhihi jirnay laakiin sheekadu hadii halkaa gaadho gabadhi hadda way ka gudubtay hooyii gaadhay sheekada hadda marka saa u fahmay sheekada dabada laga soo waday waxa la yiri niyahow reer ma taqaanaa gabadha iyo hooyadeedba kabaha la soo dulmaro soo caaya hadhowna aan dhahno hebelow iyo waxaan heshiisiinaa beeshii marka naag kontinle iyo horta gar ma geli karto walaa hooyaysan gar u geli karin walaa hodan baysan gar u geli karin walaa beesha samaroon baysan gar u geli karin iskadaa beesha samaroon horta ma baysan yaqaanaane beesha makaahile hodan cabdiraxmaan ka dhalatay baysan xataa gar u geli karin walaa beesha basan iyo jilbikeeda gar u geli karin marka waxa weyn ka adiga waxa laga rabaa adiga ka taylaan ahaan naftaada mas'uul ka tahay adiga naftaada mas'uul ka tahay waxa laga هذا عبد الرحمن حاليا هذا أنا كنت أقول مالما سفر بيكو جرتي مالما دقال كو جرتي سفر بيكو جرتي أو واحد تكتي مرايكن كيو سعودي ومرايكن كي معلو كدكتي ويتكتي مسألة بقى مصدر وإحنا عاصم معسي صدر سنة هذا أنت مرايكن كدكتي وإحنا عاصم ونيو مشغول به هيد أو ترانس به هيد مالما هذا مالما مركا واحد الربع مركا تايلانو هذا واحد الربع أنا أدمتقان ولا شهود عبد الرحمن ديري inaad maadaama arrinka lagu geliyo oo dadka dambeeyeen inaad raali gelin toos siiso هذا عبد الرحمن horta waa salaamaya in dama ku macquul way shanta boqol qof inay laga yaabaa هذا عبد الرحمن day maqlisid walaashay baa tahay gabar Soomaaliyeed baa tahay ani ahaantii naftada mas'uulka ahay waxa jira erayo khaldan inkastoo aanu gaarin waxa hooyada xagga aan u dhadhicin laakiin adiga waxay ka gargaareen adu nabaro xaqdan Allah kaaga dhigo waxa iga soo baxay adiga erayo khaldan oo jarto koow ugu khaldamay oo nin inaag xifaaltay karo caay kar nin inaag horta isku iman karaan baa mid koobaad ma garata marka hore waxa ku leeyahay waa ku xaalmri waa shay oo kugu khaldamay boqorada tahay fanaad Soomaaliyeed baa tahay fanaad Soomaaliyeed baa tahay matid fanaad Samaroon kaliya fanaad boqortooyo baa tahay iga guddoon maradan waxa way cimaamada madax ka saar waa shay oo kugu khaldamay kuma qadkeena qasnaa macna anoo ka gaarsiina kuma qarsalaya saaxib dadka bilaadka way qaldan ana ku dhigtay dikul la tasaaqo macna hada ma maqasha hada ma aragtaa hada ku maqlaad caadi wayaa okay horta nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kulli ibn aadam khadaayin dadka horta bilaadka oo dhan way qaldamaan moogtay qalad qofku uu galaa qofku ama si dhalinyaranimada lagu geliyo ama si ma taqaanaa kala lagu geliyo ama si kaftana lagu geliyo had maadaama qaladka ay qaratay ninka ma taqaanaa qaladkiisa qirtaana waa ninka ragga ma taqaanaa raganimada waxa lagu waxay kamid tahay qofka qaladkiisa qirta qofka ragga warta waa ku qaldamay waa gobonimo moogtay qofku warta waxaan sameeyay waan qalday waa gobonimo laakiin saaxiib sheekadu way ka dheertay hadda way xumaatay oo ninkaas iyo ma taqaanaa culimadiisa iyo ma taqaanaa gabadhaha garta gala gabdhaha garta ma taqaanaa golayaasha ka baana ee garta gala iyo ma taqaanaa ninkaas banaanka baanoofka ka soo gala leefka ay arrinkoodu baanoofyada agtooda la isku wareysanaya oo arrinkoodu nimankaas ay hadda u taalaa waxa rajay lahaa inaan soo qabto ninka la yiraahdo Kacab
si aan barnaamijkan mataqaana usoo gudbin aroorta inaan kala shaqo kala aan rabaa saaxiib aad baad u mahadsan tahay waana aad baad u mahadsan tahay barnaamijka sida quruxda badan uga qayb qaatay ما شاء الله وكساد على ساقو دمان وسلام انت داون صح mahadsan tahay ninka kacab la yiraahdo ku jiro inuu soo qabsado maadaama ka go'ay kacab waxa rabaa inaan mataqaana barnaamijka aad noo sii dhamaystirto oo mataqaana barnaamijka soo gasho haddaad ku jirto ninka la yiraahdo kacab waxa rabaa inuu barnaamijka soo qabsado ninka la yiraahdo kacab qof bilaadanka uu qaldaba wiilkan sidoo inii sheegay wuxuu yiri cidii mataqaana gadaal ka timid waxa rabaa inaan hadalka inii sheego ninka wuxuu yiri war sheekada ani waa la soo geliyay ninka la yiraahdo Mawlid wuxuu yiri mataqaana naagtan aan karbaasho si kaftana mata dhalinyaradu ay mataqaana live dadku u karbaashana ama Facebook ugu ka kaftamaan ugu dacaydayaan annaga hodan Cabdiraxmaan iyo showgeedii maadaama barnaamijka hodan Cabdiraxmaan iyo sheeka iyo mursal iyo showgii Booramiya ay u haystay dhulka annagoo sidii ugu kaftamana ayaa waan la soo geliyay ninkan ay soo geliyay buu xataa wuxuu iga lahaa buu meesha ay mataqaana hooyadeed ay asaguna hooyadeed buu u bareeray wuxuu hooyadeed dhilaheed buu waa maamadii weynayd ee mataqaana qaranka Soomaaliyeed ee mataqaana shanta Soomaaliyeed ee taqaanay ee ku jiri jirtay maama Aamina Cabdilaahi ee ku jiri jirtay kooxda mataqaana waa bari ku jiri jirtay cid kasta taqaano weeyaan qofku caaya marka isagu xataa waxa laga hayaa isagoo hodan lagu shahiido waa dhilo qorta laga gooyo hebel ana dilaya ana channelka kuugu imanaya isagoo anigu la addresskaaga iyo soo dirin waxa soo dhan isagoo u record gareysiin asaga u tala asaga soo uga dabaalanayo asaga u tala meesha Yurub baa cid dili karta ma jirto cid dili karta ma cid dili ugu hanjibi karta ma jirto caafimaadkiisa iyo kiniinadu ka cunayo iyo soo uga dabaalanaysa jirta gabdhaha mataqaana la yiri wiilashu labada wiilba waxay ii sheegeen in gabadh kaltuun la yiraahdo ay ku tiri waxaan rabaa inaan soo qabto oo gabadh kaltuun la yiraahdo oo fanaanad iyo wariye ah oo Ingiriiska joogta inay ku tiri waxaan rabaa inaan soo qabto oo gabadha hodan Cabdiraxmaan si live aad u siisaan raali gelin laakiin waxay ay kaltuun barnaamijka wuxuu yiraahday nooga baxday wiilka Thailand oo ay ku soo qortay Mawlid oo ah wiil ay iyada ilmaadeer yihiin oo wiilka sheekadan keenay ee caayay hodan Cabdiraxmaan caayay ee hooyadeed caayay ee hal la dilay ee la isku qarxiyay ee waxaan ka sheekeynay ayaa waxay tiri gabadhaasi iyo waxaan heshiisiinayaa beesha Samaroon sheekadii hodan Cabdiraxmaan buu uga booday sheekadii hooyadii uga booday waxay tiri hodan Cabdiraxmaan markii dambana waxay la soo fadhiisatay buu inta sheekada annaga nooga boodayba waxa la caayay maama kale anagu isku reernahay baa la caayay bay tiri marka waxa weeyaan anu horta ma arag hadii maama kale la caayay ka caayay waa khasunaas isaga laftiisana waa inuu mataqaana keenadu ka cun lahaa iyo mataqaana meeshu isku daweyn lahaa isaga laftiisa waa imraaso mid kale maamooyinka Soomaaliyeed caayay maamo Soomaali anu maamo Soomaaliyeed caayo ama reer Soomaaliyeed caayo ama gabadh Soomaaliyeed caayo igama filanaysaa igama sugaysaan never ever baanan caayay ولا إساقة هاتو سمرونا هاتو عيسى هاتو قوية هاتو وقادنا هاتو أما جرتنا هاتو أبقى هاتو never ever يقوم سويسان وحن رجعنا كعب نيك كعب لده هدو كجلو برنامج إنه سوق قبصدو سي برنامج أساسي سوق قبل نيك كعب لده هدو كجلو برنامج كان سوق قبصدو يسوون حال كان هكشيغو وحي كلا سوق قدبونا تيلانو صاحب كعب نيك لده سوق قبل نيو تيلانو كعب نيك لده kaltuun gabadha la soo qabanaa gabadha ku jirta gabadha lafteedii ku jirta gabadha kaltuun Cabdilaahi la lafteedii ku jirta khadfunan iyo waaqaan wax kamarada ku jirta walaal maxaa kaltuunay ma ku soo qaban karo kamarada waad ugu jarjaraysaa kaltuun Cabdilaahi gabadha ugu qortay oh my god laguma soo qaban karo qaanti free laguma soo qaban karo aan soo codsaday waxaan rabaa inaan ninka kacab la yiraahdo haduu ku jiro barnaamijka ha soo galo hal mar ninka kacab la yiraahdo haduu ku jiro hal mar ha soo galo waa kaltuunay inaan ku soo qabo
inaan kusoo qabtaan rabaa laakiin ma aqaan kuma soo qaban karo maybe inaad balooga ku hayso maybe ma kusoo qaban karo ninka la idhahdaa kacab inuu soo galaa rajeynaya kacab ninka la idhahdaa inuu soo galo yaa rajeynaya gabadhaa soo qaban kari waayey gabadha kaltuun in la idhahdo inaad soo qabtaan rabaa ay dhalinyaradu ay carabka ku dhufteen gobaad baa soo qabanaya inta ka horeysa mataqaana inta kaltuun ay soo qabanayso gobaad baa soo qabanaya gobaad ay balal qaba السلام عليكم عبد الرزاق walaal soo dhow aad baa kuu salaamay madhow walaalo waxaan doonaa barnaamijka inaan kala qayb qaato waxaan kuu sheegayaa horta inankan Thailand iyo inankii kale Kacab Yare dhowr jeer bay apologize dhiibeen arrintaana in la soo geliyay laguna soo tuuray iyada oo loo jeedo in maxaa la yidhaha qowmiyadda Gadabursi lagu aflagaadeeyay meeshaas oo ninka Mawlid la yidhaahdo ka dambeeya dad kale oo fara badan oo abwaaninana ay ku jireen ayay inamadaasi sheegeen horeyna dhowr jeer apologize usoo dhiibeen ma jecli inamadaasi inay nacamar dambe ku noqnoqdaan aad bay u mahadsan yihiin aad baan ugu xumahay inanka Thailand in weliba gacani gaadhay dee taana waxaa keentay dhibaatadii amba fudaydkii markii hore keenay in gabadh halkaa laga aflagaadeeyo waayo gabadhu dad bay ka dhalatay marka waxaan leeyahay intaan ilaahay nabar gardaraha kaaga dhigo apologize-kana waa lagaa gudoomay oo maxaa la yidhaha magaca Gadabursi oo dhan baa kaa gudoomay ma garatay isaga iyo kaba صح ma garatay صح waxaan ka hadlayaa gabadha kaltuun la yidhaahdo ee imigana halkan ku jirta ee xalay tole programka intay soo qabatay صح aad baan ugu xumahay kaltuun wixii caloosheeda ku jiray bay banaanka soo dhigtay anu kulli umaan haysan gabadhaasi inay qabiilaysato tahay laakiinse xalay iyada banaankaisa soo dhigtay nin wax loog yahay oo aflagaadaa geystay ayay intay soo kaxaysay oo ay biyo galay weliba aan odhan karo nijaas ah bay dadka hor keentay oo wuxuu doono meel walba kaga hadlay beelweynta Gadabursi oo dhan buu u gafay war inan buu u gafay ilmuu u gafay aamina cabdilaahiyo ayayaa maxaan ku dhahday 70 jir u gafay inay intay soo kaxayso dadka hor keento gabadha la yidhaahdo kaltuun horta aad baan uga xumahay ninkaasay noqotay aflagaadadii uu geystay horta kumuu macaashine raggay ka dhalatay ee Gadabursi baa garaacay fiidiyoyadii uu ku caayo inantaa ku aflagaadeeyna sharci baa wadan sharci ka jiruu joogaa ninkan jaahilkee banaanka taagan homeless weeyaan banaan buu taagay oo leefka ka soo gala intuu halkaa Gadabursi ka caayay waxaan daawanayay homeless buu hayo banaan buu taagnaa ninkaasina waxaan leeyahay sharcigaa lala tiigsanayaa sharciga Yurub baa lala tiigsanayaa wuuna ogyahay ninka personal attack ka sameeyay social media ee yidhi qof ha lagu dhagaroobo oo ha la dilo ee xalaaleeyay dhiig Hodan Cabdiraxmaan inuu maxaan ku dhahday deel maxaan ku uu ku fadhiyi doono maxaa la gidaarku homelesska ku ahaa uma malaynayo xalay buu aflagaadoonay kaltuun waxaad moodaysaa dadka inay qaniinayso haddana afuufaysa gabadha la yiraahdo kaltuun ma garatay isaga gafin oo meesha ka lahaa maxay baa kan baa reer nuur baa kana kan baa kan ah gobaadi oo ku baqlay Cabdirasaaq waxaan rabaa inaan aroortiina kala rabaa inaan waqtigu ugu yiri kaltuun bay soo qabale waxaan rabaa kaltuun in iyadu noo sheegto okay hadaba inta saa ku dhameynay waxaan u sheegayaa kaltuun waxa u ekeyd kaltuun maalintii Aamina Cabdilaahi la caayay 10 cishaa Gadabursi la caayayo in adeerkeed caayay one day may soo qaban xalay markii khadraa la meel lagu caayay la yiri anu meeshii lagu caayay ma arag laakiin meel baa khadra lagu sheegay oo gabdha la soo qabtay life lagu soo qabtaa khadra daahir soo hadal qaadaa la yiri waxaan leeyahay xalay dhiig soo fiiye kaltuun aad baan uga xumahay ay ka guban weyday 10 maalmood caydii socotay xalayna ay waliba Mawlidna hor keentay marka waxaan leeyahay gar kama geli karto ragayagana gabadhi uma gasho garna kama qaataan maxaa la dhahaa apologize-na ma siiyaan gabadh dhiig rag baa meesha yaala laba nin baa lagu garaaco dhiig iyo gacan baa ka dhacday kaltuun inaanay taa waxba ka qaban karin way og tahay marka waxaan leeyahay kaltuun magacayaga mar dambe ha ku soo qorin inay yar oo najis ah inay meel intay soo dhigto ay tiraahdo iyo waxaan hagaajisiinayaa goobta Gadabursi magacayaga kaltuun darbigeega yaanay ku soo qorin waanan ka baxay salaamu calaykum aad ba kaaga mahad celinayaa fikirkaaga
qofka bini'aadanka fikirkiisa xor buu yahay anigu qof aan mataqaana waxaas ka joog ama dhahaya ma jiro qofka isaga wixii uu dhahab qaadaya anigu waxaan rabaa inaan kaltuun soo qabto kaltuun walaalay farta soo taag haddii aan ku soo qaban karo si aad u hesho kaltuun isaad markaa uga hadasho waxaan rabaa inaan ku soo qabto walaal kaltuun cabdilaahi gabadha ay ugu qoran tahay waxaan rabaa inaan ku soo qabto markaaga gacanta soo taagna adeera gacanta waqtigoogu yar aawoodeed anigu inaan iskaga baxan rabaa gabadha cayda laga daayo iyadoo inii sheegaysa waxay mataqaanaa dhalinyaradu ay ka sheegayeen iyadoo idii sheegi doonta gabadhaas yaan la caayin inaad eegto waatan kaltuun hadda qabo hadda in macquul yahay malaynaya السلام عليكم. وعليكم السلام نادر soo dhow waad maqashaa soo maha walaal waa ku salaamay horta marka ugu horeysaa dhammaantiinna waan wada salaamayaa caadi loo arkin waa ay maqashaan soo maaha okay kamarada kolley imika diyaar umaan ahayn laakiin waxaan ku arkay adoo barnaamijka daadihinaya dadna way isoo yara qabteen oo dabeetana markaas baan mataqaanaa barnaamijkan sida awgeed ugu soo yara dhexdhacay horta marka ugu horeysa aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiinba bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo aad joogtaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalo anigu horta marka ugu horeysa magacaaga walaalo ii sheeg walaalo magacaaga aan ku cabdirasaaq xiika walaalo horta marka ugu horeysa barasho wanaagsan kaltuunta laga hadlayaa waa aniga inankan maxay tahay aan u yeedhay mawliid iyo inamadan kale iscaayaya caydooda anigu maan ogeyn maxay tahay warna umaan haynin laakiinse ilaa iyo Maraykan ayaa aniga message laga soo diray lagu yiri inamadaas bal waxay ku hadlayaan eeg ma fahantay arrintii marka aan daba galay arrintii daawaday waxaan arkay in mataqaanaa ay inamadu dhooqo ku jiraan dhinacna laga caytamayo mataqaanaa caayada ay ku socoto haween Soomaaliyeed hooyooyin Soomaaliyeed la caayayo oo wixii la doono lagula hadlayo hadday nimankan iyagu shakhsiyan isu ataagayaan shakhsiyan isu caayaan I don't mind laakiin waxa meesha lagu caayayay Amna Cabdilaahi waa hooyo Soomaaliyeed hooyadayo kala ma fahantay ha iga dhaxkal walaalo waxaad yuulisidna igu dhawaala laakiin aan yara dhamaysto gabadh walaashay batay inaan dhowr su'aalood ku weydiiyo si mataqaanaa walaalti laba qof oo walaalaha isku wareysanaa rabaa oo mataqaanaa dadkan wixii ku jiraan inaan aan ka bixino aan dadkana aan la hadalna rabaa marka arrin waxay jirtay kaltuunay dhalinyaro mataqaanaa ay horta beelaha iyo waxa hadda waa la iska caayo hadda normal bay noqotay waqtigii hore beelaha la caay jiray oo beelaha laga xanaaqi jiray horta way adkay laakiin hadda normal bay noqotay laakiin waxaa jirtay saddex wiil oo dhalinyaro ah baa waxay caayeen hodan cabdidheere iyo yarka ay dhashay oo sanad inuu jiraan u malaynayo ayay caayeen waxay dhaheen yarka kan waa sidan sawiraan photoshop la soo sameeyay sidana ka dhacay hodan waa internet la soo saaxatay waxaas ka sheegay dhalinyaro marka ay hodan ay ilmaadeer yihiin baa de ka xumaaday oo ka gubtay ayadoo arrinku uu siyaasad halka marayso ayaa haddana waxa dhacday in ay laga daayo dhinaca laaboodkaalinta maxaa hello dhalinyaro marka waxaa jirta ay mataqaanaa dhalinyaradii marka waxay dhaheen waxay dhahdeen niyo laba dhalinyaro waxay dhahdeen waan la soo geliyay yarka marka xalay aad soo qaaday oo mawliid leeraa oo Faransiiska jooga niyo isagoo horta xaaladiisu weyba ka xumeyd labada dhalinyaro kale hadday live ku jireen maalin dhaweed xataa video yar raali gelin bixiyeen isagoo xataa wuxuu sheegay hiblaayaha lagu jihaado hiblaayaha jiro aniga xataa wuxuu igu waxaan kuugu imanayaa waddanka joogto meesha joogtana qaana kan wax nooc sheegay oo dil iyo waxaas ku hanjabiyay isagoo waddan Yurub jooga marka waxay dhaheen xalay iyadoo Amina Cabdilaahi sheekadii hodan way soo dhaaftay oo waxa la caayay maamadii Amina Cabdilaahi ahayd bal caayay waan gartay halka iyadoo sheekadu maras waxay dhaheen xalay kaltuun baa nala soo hadlaysay
oo nagu tiri waxaan rabaa arrimada inaan naga waraysto kaltuun walaalo sheekadii way nooga baxday waxay yidhaahdeen say hadalka u dhigeen sheekadii way nooga baxday yarkaas Faransiiska jooga ayay ilmaadir yihiin bay yidhaahdeen yarkiibay soo qabatay yarkiibay iyo waxay ku soo qortay ninkaas iyo beesha Samaroon ayaa dhexgelaya waan ku soo qoray walaalo anaana ka dhaadhicinay waxaan ugu soo qoray ku sheegaya labadan inana kale ee adiga kula hadlayo walaalo anigu meelay ku caytamay horta marka ugu horeysa maan daawanin manaan arag soo waxaad gartay maaha toosna ulamaan xidhiidhin oo lamaan hadalo kumaan odhanin waa ku halka ku jiray hadday yaraan toos bay kaltuu noola soo xidhiidhay yacni xaal baan ka bixinaya golo joogtaa lamaan hadal oo kumaan odhanin walaalo adinkana waan idin heshiisiinaya kumaan odhanin walaalo soo waxaad gartay maaha qofka keliya ee aan anigu daawaday caydiisa daawaday ina damaqday ee aan doonayay inaan soo qabto oo aan la hadla wuxuu ahaa walaalo Mawlid baa ma fahantay Mawlid baa soo qabtay inankii kale maxaa taqaanaa guuleedna waan soo qabtay inaad daawatay barnaamijka mooye guuleedna waan soo qabtay nabiilna waan la hadlay inan kale oo iyadana fadhiisay ma la yiraahdo oo iyaduna maxay tahay gadbiisi si dhandigana waan la hadlay soo waxaad gartay maaha intaasoo qof baan la hadlay macnuhu waxa weeyaan walaalo gunta la isugu soo dhaadhacay waxa weeyaan horta inamadan kale horta anagu maanaan wada hadalba labadan inana kale imika inanka halka ku jira inanka kale hadday jecel yihiin waan soo casumaya waan la hadlayaa sharaf bay iga mudan yihiin qadaran bay iga mudan yihiin laakiin waxaan uga baxay iyo waxaan kula ballamay tooni midna walaalo may jirin ma fahantay laga yaabaa in iyagu Mawlid soo wada hadleen uu Mawlid ku yiri uu ku yiri laakiinse anigu wax ballan oo aan inamada la galay aan la hadlay haba yaraatay ee may jirin ma fahantay Mawlid baa meesha yimi I know inuu khalad galay I know inuu mataqaanay hooyo Soomaaliyeed ku gafay I know in ilmo yar oo sabiya sawirkiisa intuu soo qaatay uu ku gafay soo xad gartay maaha ilmaha yar ka hadlayay walaal waa ilmo yar oo ilmahayga kala anbo ay damqaysa hooyana ma jecla ilmaheeda meelaha la warfiyo oo laga hadlo leeyahay dhalayada soo xad gartay maaha hodan Cabdiraxmaan from the day one ilaa iyo maanta dawaa ina walaashay walaal garibkeedan taagna haddii ma taqaanaa qabiil iyo istaqsaaqi wax la isugu dabnay khadra sin mooyada ag taagan baan anigu hodan sawirkeeda soo qaadanayna hodan u hiilinay for what ma garatay marka walaalo umada hadday xanuunsanayso doonayso walaalo inay qabiil dabada haysato qabiil macna ma sameeynaya inantan waa inan walaashaya waxa lagu yiraahdaana anay igaadho anay damqaysa ma fahantay hooyada la caayay Aamina Cabdilaahi la caayayana walaal anay damqaysa laakiinse anigu khadra daahirna meel lagu caayayo maan arag Aamina Cabdilaahina meel lagu caayayo maan arag to be honest with you walaal ma fahantay sabuurada dadkii ku soo qorayay ayaa waxay ku soo qorayeen walaalo khadra daahir baa la caayay af markaan akhriyay ay soo qorayeen laan khadra daahir baa la caayay maan arag haddaan ku iraado imika anigu meel khadra lagu caayay soo daawadan soo arkay dambi baan ku jiraa maan arag meel khadra lagu caayay runta marabtaa meel Aamina Cabdilaahi lagu caayayna walaalo maan daawan shaahidtu maan ahayn laakiin waxaan daawaday oo aan arkay iyada oo hodan la caayayo oo ilmihi yaraa la caayayo oo la wadwado oo la leeyahay yaa ka dhalay kelmadda kaliya aan anigu ka xanaaqay soo kiciseen meesha u soo fadhiistay Mawlidna u soo kaxeeyay ku ori joojiye waxa wadaana waxay ahayd walaalo ilmaha yar iyo inanta caarka ee la wadwado la caayayo ya joojiya ayda dumarka wadaan haddaan idhi walaalo dee khalad kuma jiro khaladna maan gelin hadday dadku iyagu qaloocinayaan qabiil ka dhigayaan de walaal iyagii la jirtaa ma fahantay anigu waxaan ka talinay waxay ahayd samo iyo wanaag bay ahayd walaalo in inantaa ammaan la siiyo oo loo dhigo magaceeda loo dhigo Mawlidna anigaa la hadlay anigaa canaantay anigaa ku yidhi inanta mar dambe magaceeda iyo sawirkeeda toona midna kuguma arkayo ilmahan yaray force place aad meesha soo dhigatad ka hadasheen markii ugu horreysay ba khalad ku jirtay inaad ilmo yaro Soomaaliyeed inta meel soo dhigtay aad ka hadasheen صح ma fahantay marka walaalo dee inan lacay waa inan lacay haddii aniga maanta la caayo dee waxa weeyaan aniga hodan isku mid baan inaad saa u aragtid weeyaan ku dhaado ina Soomaaliya tahay maxaan ku kala duwanaa aniga hodan magacayuun baan loo kala sameeyay waxa la yiraahdo Samaroon ana waxa la yiraahdo Hebele maxaan ku kala duwanaa laba hablood oo Soomaaliyeed maxaan ku kala duwanaa caayada hodan iyo caayadeedu labada wada inay dhibto weeyaan ha kaltuun mid baa jirta anigu sax Cabdirasmaan
meel ma layga helayo qabiil horta inaan caayo mana layga helayo inaan gabadh caayo waayo waan gartay inaan caayana dee aniga laygumana soo barbaarin damiirnay ma siinayo moogtahay waan gartay hodan caay horta weysi haddii lagu caayo adigana waa edab daro hadda ma dhowd kuma qaar kusoo qori anigi lahaa warde gabadha soo qabanaya ayadana kusoo qorsan iska daay wala aniga waxay ku caayayaan waxay ku leedahay goobta samaroon oo hadda maxaan ku oran lahaa ma gunta samaroon waan ku oran lahaa ma xumaanta inta aleg baleg walaalo ay raadinayso xitaa gabadha imika kula hadlaysay xumaanta ay raadinaysa maxay tahay waaba gabadho waa caar oo hooye xumaanta ay raadinaysa maxay tahay anu xumaan baan ka tali wanaag baan ka talinayay waliif inanta alloon inanta caayinin ilmaheeda caayinin daayo ma waxaan ahayn iyo samo iyo wanaag waxaan ahayn man kala talinayay guuleed markaan la hadlayaan ku dhaha gilooda halka ku jooji walaalo maalin dambe kaltoona mid baa jirta raadinay xumaan baan raadinay kaltoona inaad mid baa jirta ما مقشع ما مقشع وك مقلان ما مقشع ها وك مقلا سفي عن mid baa jirta adiga dadku waxay kuugu dheganayaan waxay heed maadaama ay dhalinyarada ku carrabaabeen adiguna qof public figure aad tahay ama macnaha qof aan oo wariye ah anana ah inta kaliya dadku mataqaana kugu haysteen maadaama ay dhalinyaraduna ku carrabaabeen dadka waad ka jaahiltay wixii dhalinyarada iyo adiga idin dhex maray adigu waxaad tahay gabdhaha Soomaaliyeed lagu manacay karo laakiin arintu inaad yaray horta mudday soo jiidmisay aniga xataa waxa isku dayay arrinka dhex galo arrinka inaan dhex galo oo kala joogo oo dhalinyarada la hadlaba isku dayay ayadoo saas tahay ayaa yar waxay soo qabtay wiil Ilyas la yiraahdo habeen soo qabtay sax oo markii kaftamana anagoo ka kaftamano oo le nimankan maxay ahaayeen nimankan gabadha ay nimanka culdoon u sheegay abaarse ka soo baxeen lahaayeen ba anagoo oo kaftamana ayuu yarkii ugu waa garxaj markaas ku waa garxaj ka tolbaan hayna waxa ku dhacayo deetana si arrintiisa u hayd ayuu yarkii oo maqiiqan baa la soo diraanay caayo iyadoo si tahay baa yarkii xoogaa adu Facebook hadal isku dhaafay isku muuqaalaan leeyahay buu ayuu jarjartay oo uma taqaana uu isagu soo geey meesha uu xay arrintu saas ayna dhex gal anigoo raba ayuu habeennimadii dambe wuxuu keenay inuu hooyadii inuu gabadhii islaantii weynayd ee maamada ahayd caayo inuu arrinkiiba faraha saaro deetana aniga wiil ay hodan Cabdiraxmaan ilmaadeen rumeeyeen ba waxay igu yiraahdeen niyahow faraha ka qaad arrinkaas anaga ninkaas haniishiisiinin ee faraha ka qaad dhalinyaradan marka hadda waxay igu yiraahdeen dhalinyaradan hadda caawa ayaa waxaan life baan ugu jiray waxay yiraahdeen niyo arrinkaas anaga cidina soo gelisay baa rabna waxa ku bal arrinku ku bilaabay idinka saad ku soo gashay wiilkaas iska daa wiilkaas wuxuu caayay oo uu cadeysanay oo isagaaba waalidka xataa caayay idinkooda hodan caayay arkay arrinkaas saad ku soo gasheen bal idinku noo sheega deetana waxay igu yiraahdeen arrinkaas baashaal iyo kaftan ahaan baan ku galnay markii hore kadibna iyada adigana marka hadalkii kugu soo daray marka halkaas ka soo gashay anigu walaalo waxaan u socday wanaagun baan u socday haddaan mawlid soo qabtayna walaalo wanaagun baan u socday waxaan isla dhibaatadu halkaa ku joogsato ma fahantay dumarkan la caayayo inantan la caayayo hooyada la caayayo ilmahan yare la sito waxaan la sito ayuunba aniga i dhibtay walaalo oo aan u adkaysan kari waayay ma fahantay anigu meelan qofku aflagaadeeyana ma jirto goobta samaroon haddaan soo qorayna samaroon waa gob oo qofkii rogaya xumaan ka soo saaraya de walaal sagay la jirtaa ma fahantay aniga ummadda Soomaaliyeed waa isku kay wada mid ka aan la dhashay iyo ka kale anigu waa isku kay mid anigu qof qabiil kama dhanbana yaa samaroonna waa dadkaygii oo dadka dad iigu xiga ee aan mataqaanaa ceesho milix laahay ee la joogay 24 saac la sheekaysta waa yaga may fahantay marka walaalo maxay tahay in dadka meesha kugu jirana waxaad ugu sheegaysaad ku oranaysaa inamadan kale ee kula hadlay kula weyn soo qaban weydeen de walaalo anigu idamaan balabin haddana markii dambe ilaahay baa igu ogay waxa naga xumaaday kamaradii baa iga xumaatay soo qabashadan soo qabanaya ayay iska jartay in far badanna meesha waan fadhiyay bari maxay aroortiina waan kala hayay de waan ku daalay walaalo dabeetana aragga gunucdiisii haddii laga hadlay walaalo de maxay tahay meesha waan iskaga baxay hadday inta xumaan u qaateen de waan ka raali gelinayaa oo ay yiraahdeen way soo qaban weydeen waan ka raali gelinayaa laakiin si ay wacay meelay ku raali geliyaan badda inanta hadday caayeen inay raali geliyaan weeyaan walaalo ma fahantay ay labada wiil hadda labada wiil aniga agteeda ku raali geliyaan iyo in meel kale ku raali geliyaan ba raali geliyaan inanta iyagu xitaa kaligood kamarada iska soo duubana raali geliyaan inanta waxay ku yiraahdeen ka raali geliyaan labada wiil hadda waan soo qabtay oo yarka ka cableeda khadka ka go'ay wiilka kale Thailand leeyahay raali gelin buu bixiyay buuxda
halkan صح mataqaan wadan raali galin mariyay iyo familigeeda iyo mataqaan dadka ka dhalato dhan adiguna aad baad ma ana aroorteena kala rabaa waqtiga qaaliga aadna siisay sida quruxda badan ee barnaamijka nooga qayb qaatay iyo ixtiraamka aad noo muujisay walaashay aad baad ugu mahadsantahay aad iyo aad baan walaalo dhammaantiin bay idiin salaamayaa maxay tahay cuqdadana walaalo aynu iska saarno xumaantana aynu iska saarno dad walaalo ah baynu nahay meel alaalay meel in ku kala tegaynaa ma jirto dad walaalo ah baynu nahay kun jeer baan idinku celcelinaya dad walaalo ah baynu nahay soomaali baynu nahay qabiil inaynu ku talno maanta oo dhan qabiil isku cayno maaha walaalo aad u mahadsantahay walaashan kaltuun aad buu mahadsantahay niyow ninka ka cableeraa baan rabay inaan hal mar soo qabto oo barnaamijka uu dhammaystirto ninka ka cableeraado way daawanaya waan arkaa niyow kuma hayo haddaad barnaamijka dhammaystiri karto soo gal niyow barnaamijka haddaad dhammaystiri karto soo gal inaad ero ka cab ninka la idhahdaa barnaamijka hadduu dhammaystiri karo kuma arko niyo kuma arko barnaamijka qaybtiisa labaad insha allah habeen dambe iskugu soo noqon doonaa tan iyo intaynu barnaamij lamada kulmi doono khayr baan iga rajeynayaa dhammaantiin aad baan idin salaamaya